kadib daadadkii roobkii deerta ahaa ee burburiyay wadooyin muhiim u ahaa magaalada ayaa waxaa dib u dayactir xoog leh maanta laga bilaabay laamiyo iyo marino ku yaala degmada Hodan waxaana si gaar ah hawshan maamulka degmada Hodan ay uga bilaabeen waaxda Taleex halkaas oo ay marto wadada xiriirisa isgoyska Sheekh Cali Suufi ilaa Tanal Barako waxaana halkaasi halboolay u tahay dadka iyo gaadiidka oo ay aad u isticmaalaan waa kan Cabdikaafi Yuusuf oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Hodan oo goobjoog ka ahaa hawshan dib u dayactirka wadada xiriirisa Sheekh Cali Suufi ilaa Baraka dadka deegaanka oo isxil saaray ee wadada dhagaxan ku shubay roobkii hadda imaanay ka hor ay dhagaxan ku shubeen roobkan ka horreeyay burburiyay dhagaxan bi ku shubeen dhagaxantii baa difaac u noqotay laamiga haddana wana garab istaageen waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dad isku duuban maadaama ay yihiin maamulkooduna uu adeegayo inaan wadadan waqtigeeda dambe aan ku soo celino laamigeedii hore wadeedinu sida ay tahay sida anoo kaashayna shacabkeena maanta waxaan sameynay dhagaxaantii iyo carradii degmada ka duntay ayaan ku dayactireynay meelihii roobka jeexan qaybaha kale ee degmada qorantahay maxaa idin kaga qorshay roobku ay sameeyeen aad u maasan tahay hawshan hadda ma aysan bilaabanin khamiistii wadada Taleex baan ka shaqeynay oo aan meelihii roobka jeexan dhagaxaantii carrada aan ku shubaynay jimcihii waan isniina maanta sabdiina halkaan ka shaqeynaynaa berri dambana waxaan ka sii shaqeynaynaa wadooyinka kale ee degmada fariimo badan baa nooga imaanayo fariimo ka nooga imaanaya waa gudbinaa waxa aan ka qaban karna annaguna waan ka qabanaa waxaan wadnaa hadda wacyigelin dadka shacabka deegaanka inay wadooyinkooda ayaga hagaagsadaan inta awoodooda ay tahay inta badan dadku waa la aqbaleen laami waliba guriga ku dhagan kan labaad inay inta isku daraan lacago meelaha dardaran ay ka hagaajiyaan sidoo kale inta ay socotay hawshan dhismaha wadooyinka waxaana la hadlay gudoomiyaha waaxda Taleex Liibaan Cabdullaahi Salaad sida u jeedaan maalmahan waxaan ku hawlanayn wadooyinka jajabay oo roobku biyaha jeexay sidii aan dadka shacabka iyo anagu aan iska kaashano aan dib bilicdi u soo celi lahayn iyo nadaafadii sababtoo ah wadada haday jajaban tahay xaalad amni darro xaalad nadaafad darro iyo xaalado badan oo kale oo culays oo bulshada dhibaato ku ah waa ka imaanayaan marka anagoo maamulka degmada ah oo si wada jira isu kaashanayna anaga shacabkayga ayaan waa u jeedaan hawlahaygii wadnaa waana ku guda jirnaa waxaan ku rajo weynahay anaga shacabkayga iska kaashanayna iyo maamulka degmada iyo gobolka ilaa heer qaran in aan dhamaystirno waxyaabaha yar dhiman si aan u gaarno horumar ay caasimadda ula tirsato caasimadaha adduunka si ay ula tirsato sababtoo ah dadka bulshada Soomaaliyeed waxa laga rabaa in iyagu ay dalkooda dhistaan waxa weeye annaga ka waax ahaan iyo ka degmo ahaan intaba waa wax annagu aan garanay ka maamul ahaan in aan annagu bulshada inta wax u bilowno annagu oo annagu aan hawsha bilowno ka bacdi si ay bulshaduna annaga noogu daysadaan sababtoo waayo qofka bini'aadanka waa la wacyi geliyaa waxa weeye waxa uu waa la dhiirigeliyaa si uu hawsha u guda galo fariinteeda waxay tahay in ay dadka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalkooda dib u dhis iyo bilic soo celin ka shaqeeyaan waa kuwan qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo iyagu ka hadlay dareenkooda ku aadan dhismaha maamulka degmada Hodan uu ka bilaabay maanta qaybo ka mid ah degmada haddaba baaqan waa kii ugu horeeyay ee maamulka degmada Hodan ay ka jawaabeen qaybta hawsha oo ka socoto waa degmada Hodan gaar ahaan waaxda Taleex sida aad u jeedaan waxa ka socota hawshii nadaafadda waxa dib loo dayactirayaa wadooyin roobabku saameyn ku yeesheen Cabdullaahi Gacmo, Somnews TV, Muqdisho.